dadkii igu horreeyay ama xildhibaanadii qiimaha badnaa igu horreeyay ayaa yiraahdeen wixii aan dhihi lahaa laakiin hadda hal eray ayaa igu soo dhacay inaan iraahdaan rabaa xaqaan u leeyahay inaan mar labaad codsado oo aan gacanta taago dadka la yaaban ha u arkaan xildhibaankii inuu xor yahay intuu meesha fadhiyana uu dalban karo mar walba hadal waa maasantiin waxaan rabay keliya inaan ka hadlo waxaa jiro waxa la yidhaahdo oo aan ka hadlaynaa maanta xeer hoosaadka dowladaha hoose wasiirka arrimaha gudaha uu soo gudbiyo waa mahadsan yahay wuu soo dadaalo wasiirka laakiin annaga waxaana laga rabaa masiir ummadeed waayo wax meesha ku qoran masiirkaas ummadeed si sahlan akhrinta koowaad akhrinta labaad iyo akhrinta saddexaad midnaba ku soo koobmayso sidaa daraaddeed ani waxaan soo jeedinayaa wasiirka su'aalo badan u yaal meesha oo ay ka mid tahay dastuurkan hadda uu noo keenay ama hindisahan hadda uu noo keenay in la meel mariyo sidaa darteed waxaan rabnaa inuu yimaado si su'aalo looga weydiiyo isla markaasna loogu dabaqo meesha si loo galgalsho waxa la weydiinayo xildhibaan kasta ee haddeertaan dhexdiis ka guuxayay ee guddoonkana uu soo jeediyey ahaa guddiga arrimaha gudaha loo dhiibo ayaga ka doodaan wasiirka hawlu noqdaan anigu waxaan qabaa arrintaas inay jilaac tahay bidaarina sibiqay kugu gashaasaan maqlay waxaan rabnaa marka wasiirka inuu soo fadhiisto su'aal kasta qodob qodob aan dul istaagi doonaa kadibna asiga waxa uu la jeedo waxaa jiro wax la dhaho terminolojiya jirto terminolojiga waxaa waaye waxaan adig garanayn dawada loo isticmaalaa ereygaas haddii marka ay dhacdo macno annaga saa u qaadanayna ay tahay inuu aslan si kale ula jeedaa dhici karto marka wasiirka inuu yimaado waxaasaa codsanaya aniga inuu noo yimaado aan maaragtay su'aalaha si toosa isaga looga weydiiyo xeerkan uu soo qoray waa maasantii kugu soo boodina waxaa waaye madaxweynaha loo yeero arrintaas marka waxaan u arkaa niyo fudeed nagu jira waaye aniga waxaan qabaa niman yahow xildhibaanada ah ee mas-uuliyiinta u ah hirshabeelle waxaan moodaa dadka shaqadoodu inay u kala saarnayn annagu shaqadeenna waxaa waaye waa sax la xisaabtan wuu jiraa inaan la xisaabtanno xukuumadda inaan sharciga ilaalinana waa sax laakiin niman yahow waxaan kale badiskana laga daayo waxaa jiro ayaan dhawid abaaraa lagu jiray abaartii hadda biyo baxa haddana beddeshay waxaan moodaynaa annagaan u jeednaa indhaha ka fiirsanaynaa maanta shalay inkam yaroo dadka soo galay hal qof oo dhahaya ma jirto dadkayga aan ugu deeqay halkan dollar warnimayo duruufta jirta aan ka hadalno ilaahay aan ka cabsanno madaxweynaha wasiirada inta wasaaradahooda active ka yihiin oo